السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga asxaabtayda familkayga waan idin salaamay meel kasta adduunyada aad ka joogtiin kusoo dhawaada Ifraax Bashiir Kitchen janaalkiina waaye kusoo dhawaada meel kasta aad joogtiin maanta waxaan sameysanaynaa oo jikadeena ka diyaar ah aan rabaa inaan maanta sameysano kabaabkaas oo laga sameeyay hilibka shiidan laga sameeyay hilib lo-aad ayaan ka sameynayaa adiga hadaart hilib geel waa ka sameysan kartaa waa kaasaa kiilo hilib ayaan soo diyaarsaday adiga haddii aad hal qof oo tahay waa ka yareysan kartaa waxaan rajeynayaa inuu aad ka heli doontaan aad iyo aad ayuu u fudud yahay waxaan halkaan inta kusoo diyaarsaday hal basal oo isqabto iyo 2 xabo toon aan isku soo shiitay oo biyo aan kusoo shiiday waxaan ku darsaday hilibkii ayaan ku kordaray waxaan meesha kusoo diyaarsaday maraq digaag waxaan ku diyaarsaday filfil iyo liin oo isku qalajisan oo shiidan ayaan halkaas kusoo diyaarsaday cusbadii oo meesha aan ka maqneen basbaaskii oo gaduudka ahaa oo bowdarka iyo barbarooni oo gaduudan oo shiidan waaye oo aad ugu fiican in lagu darsado hilibka oo aad iyo aad oo macaan aga dhigayo carfinayo masha Allah kiyo wuxuu dhan markaas soo diyaarsatid hal mar ayaad isku dhex shubanaysaa kadibna markaas wuxuu dhan markaad ku wada diyaarsatid ayaad waxa sameynaa hadda waan ku wada darsanayaa ujeedin haddana waxaan ku darsanayaa xabaaji kari iyo xabaaji dhuudhuuban oo isku soo sameystay ayaa ku jiro markaa ku shubatid kadibna waxa sameynaysaa hadda waxa meeshan ku soo diyaarsaday kabsar caleen adiga qiyaasta arabtid isticmaal kadibna waxaan ku sii darsanayaa 2 xabo oo ukun ayaan ku darsanayaa markoo dhan wuxuu dhan 2 xabo ukun ayaan hadda ku sii darsaday hal mar ayaan isku wada walaaqayaa wuxuu dhan kadibna waxaan soo diyaarsanaysaa aad biyo ku soo karsanay hal xabo oo baradho ah ayaa biyo ku soo karsanaysaa markay ku korto ee ku jilacdo biyo ayaa ka daadinaysaa qolofkii ayaa ka fiiqanaysaa haddana waad ujeedaa waan soo diyaariyay waxaan diidaa waqtiga inuu nagu dheeraado baradhadii aan soo diyaarsaday oo aan soo maqaarka ka soo fiiqay aan halkaas ku soo ritay waxaan ku jajabsanayaa bahashaas aad ujeediin ayaan ku jajabsanayaa qaandadaasiita ayaan ku jijibinayaa haddii aadan helin waxaa ku jajabsan kartaa qaandada caadiga taa waad ku jarjaran kartaa waa ku jijibin kartaa iyo bahasha oo farmaajada lagu hoolo ayaa ku jijibin kartaa waa kaasaa hadda aan isku wada dhex darsanayo hilibkii ayaan ku dhex darsanayaa baradhadii aan soo jijibiyay wuxuu dhan sidaan iskugu wada dar kadibna si fiican u walaaq oo iskugu qas si oo si fiican oo iskugu dhaxgalo xabaajigii iyo wuxuu dhan aan isku darsanay iyo baradhadii iyo kabsar caleentii wuxuu dhan dhaxda iyo si fiican ay iskugu qasaysaa isku dhaxgalayaan markay si fiican ay isku dhaxgalaan maasha Allah waaba dareemaysaa caraf agooro waxa ka soo baxaya aan caadi ahayn ayaa ka soo baxaayo waana jeclaad doontiin waad arki doontiin asxaabteed waxaan jeclahay wax walbo inaan idin soo gudbiyo haddana waxaan ku darsanayaa rooti oo qalalan oo shiidan ayaan ku darsanayaa 5 qaando iyo bar ayaan ku darsanayaa sida ujeediin saas ayuu u shiidan yahay oo u qalalan yahay haddii aadan helaynin rootigaasaan u shiidan waxaa sameysan kartaa rootiga qafiifka oo islayska oo ismariska ayaa waxaa sameyn kartaa 2 xabo ayaa biyo ku qasanay markuu jilco biyaha ka miiraysaa kadib ayaa ku dhex darsanaysaa wuxuu u yeelayaa markii lagu daro wuxuu isku dhadhajinayaa maxaa la dhahaa si fiican ayuu wuxuu ka dhigayaa si oo jilcan oo aad u fiican oo waa dareemaysaa markaa ku dirtid inuu isku dhagdhagayo isku keenayaa si fiican maasha Allah wuxuuna ku soo baxayaa gacantaadana ma kaaga dhagdhagayo kuma dhibaayo sameyntu aad u sahlaya marka sidaas ayaa sameysan kartiin asxaabteyda si fiican u qas si fiican isku dhaxgeli saan idin kugu sheegay maasha Allah kadib waxaan sameysanaynaa markaas saas isku dhex qastid kadib waa la kuusayaa waad arki doontiin kuuskuuska si oo waxaad u kuusaynaysaa gacantaada cabirkeeda haddii aad rabtid yariish waa ka dhigi kartaa waa yareyn kartaa ani cabirkaas ayaan u sameystay haddii aad xiiseynay sideeda tixraac kuuskaas aad ujeed gacantaadaad kusoo qabsanay gacanta intaadan kusoo qabsanin ka hor waxaa sameynay saliid soo diyaarso saliidda markaa marisid kadib hilibka soo gooso kadib gacantaada ku kuus sidaas aad ujeed gacanta aan ugu wareejinayo ku sameyso mana ku dhibi doono saliidda haddii aad ka hormarsiisid kuma dhibaayo markii aan kuli soo wada kuuskuusay aad ujeedin sidaas siita aan u wada kuuskuusay
soddon daqiiqo ayaa meel dhigayaa. wuxuu kaa caawinayaa caraftiisa oo si fiican oo isku dhexgalayo oo maasha allah si fiican ayuu u dhexgalayaa. iyo wuxuu kaa caawinayaa markii aad dubaysid, waa aragteen markii hilibka la dubo wuu isku soo ordayaa, marka wuxuu ka ilaalinayaa inuu zaaid iskugu soo ordo, wuu iscelinayaa. 30 daqiiqo ayaad meel dhigaysaa. markuu si fiican uu isku dhexgalo kadib waxaan bilaabeynaa inaan dubno, oo saliidana xoog ha usoo kuleynin, dhexdhexaad ka dhigo. haddii aad xoog u kuleysid ceeriin ayuu dhexda kaa naqanayaa. si uusan dhexda u ceeriin uusan kaaga naqanin, saliidaada dhexdhexaad ka dhigo. kadibna maxaa la dhahaa waad dubanaysaa. waad ujeediin maasha allah. waan ku ridayaa hadda birtaawadii, saliideeda dhexdhexaad waaye. waa ujeedin, waad ka dareemaysaa saliidda markay xoog u kulushahay xoogay usoo boodboodaysaa, ay maxaa la usoo badbadaysaa. hadda waad ujeedin si dhexdhexaad waaye ayaan ku karinoyaa. sidaan haddaad tixraacdid waan hubaa inuusan ceeriin dhexda kaa naqanaynin, wuxuuna kusoo baxayaa si soofti oo macaan badan, caraf badan. markaad dubaysidaaba dareemaysaa caraftiisa maasha allah. inta hadda aan ku daray haddii aad ku dirsatid oo habkan aan u sameeyey aad u samaysid, waa hubaal inuu sidaan kugu soo baxaya asxaabteyda. sida aad ujeedin oo waadaxa ah ayaan idinkugu soo gudbiyey. waxaa ku cuni kartaa maxaa la dhahaa bariiska, waxaa ku cuni kartaa hilib iyo maraqa u samaysanaysaa, aad ku cuni kartaa salaatadaada diyaarsanaysaa. bariiska ilan waan is ognahay Soomaali haddaan nahay badanaa waxaan isticmaalnaa hilibka ariga, digaag oo kale ayaan u dudubanaa. waxaasoo dhan waa ka caragidisanaysaa. faarahaneed hilibkan kuuskuuska oo kabaabka ayaa u samaysanaysaa. bariiskii hadda maasha allah waana idin tusin doonaa. bariis ayaan anaga hadda maanta ayaan ku qadaynay. haddana waxaan sameynayaa, waan gadinayaa. markuu sidaas kusoo baxo oo dahabigaas uu noqdo ayaad gadinaysaa maasha allah. si fiican ayaa marka labada dhinacba sidaas markaad u guduuday sidoo dahabi uu kugu soo baxo waa ka baxsanaysaa maasha allah. jaahis waay, markaas waa diyaar. saliidan waad ujeediin maasha allah, saliid yar waaye. saliidna kaama dhuuqaayo, wax si qalalan ayuu kugu soo baxaya, oo gudihiisana saliid kaama dhexgalaayo. insha allah waad arki doontiin haddii ilaah yiraahdo. maasha allah ayuu kusoo baxay, aad ujeediin. haddana waan ka bixinayaa. haddana qaybti kale ayaan sii dubayaa. la socda insha allahu tacaala. waxaan rajeynaya inaad ka heshiin. waa kana kii u dambeeyey waaye maasha allah, aan haddana kasoo bixinayo. waana ku mahadsantihiin sida qurux walaalahayga aad ila socoteen, aad kusoo daawanayseen. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. waxyaalo kalena waan idiin soo wada, cuntooyin kale aan idiin soo wadaa. maadaama oo cunto kastaba waxaa fiican inaan samaysano oon isku dayno maasha allah. cuntooyin dhowr cunto oo kala duduban ayaan soo sameeyey oo aad u fudud oo cunto caafimaadna ah. samaysta iskuna daya. janaalkana soo booqda insha allah. janaalkana kor u kiciya, waa janaalkiina. subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka intaba noo saara, asxaabtiina gaarsiiya. intaas codsi waaye. waxaan idinkaga maqannahay dadaalkiina inaan wax walba soo gelino insha allah. waad ka heli doontaan haddii ilaah yiraahdo. waad ujeediin maasha allah. miiska kaale aragaan ku dhahay waad ka heli doontaan. aniga waxaan u karsaday bariis ayaan u karsaday. idinka wax alaa waxaa rabtiin u karsada, ama baradho u dubta caruurta ku siiya iyo xaajiga. aniga sidaan bariis ayaan u karsanay. qadadeeni maanta waaye. waad ujeediin maasha allah. miiskana sidaan ayaan u sharxay. bariiskana waad ujeediin qudaar aan soo sameeyey aan kor kaga sharxay. asalaatadii oo dhowr nooc isku jiro oo meesha noogu diyaarsan waad ujeediin. iyo basbaaskii oo meesha ka maqneen. asxaabta samaysta isku daya, iskuna daya. waana mahadsantihiin sida quruxda badan aad maxaa la dhahaaya noo soo daawateen. kheyr badan ayaan idinkaga tegay walaalahayga. subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka asxaabteyda inta hore u saartay waad ku mahadsantihiin. intaana weli saarinaha saara insha allahu tacaala. kheyr badan ayaan idinkaga tegay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.